السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرر سوماليلاني مير كستو joogtaan waa idin salaamaya guud ahaanba ummadda islaamka ah waxa la yiri ragna calooshi la ciyaar iyo ciilkama korow daran dumarkana casar ciirteed bogatiyo casarkii seexatow daran waxaan doonayaa inaan halkan fariin u mariyo maanta nin maxaan ku idhaahdaa la yiraahdo Cali Xaraare oo macnii sida uu u hadlayo macnii aad yaabayso ninkaas dhowr jeer waxaan arkay asagoo la gabadha la yiraahdo Sahra Halgan meel ay oo la yiri waa fanaanad meel anigu ay fanaanad ku tahay maan arag mana aqaane hadii aanay fanaanad ahayn hadii aanad aqoonin maxaad u hadal haysaa maxaa ka saaran maxaad u soo hadal qaadanaysaa waxaan ku leeyahay Cali Xaraare hadii uu aad ciil qabto oo ciil uu ku hayo isaaq la yiraahdo walaala talaan ku siinaya intaad qori qaadato 10 nin oo isaaq dil dabeedna led oo seexo waxa in xanuun iyo maxaan ku raay colaad ayaa ka hadlinaysa oo haysan kari laaday waxba ku gubaaya haddaba ragga maxaa la yiri ragga calooshi la ciyaal iyo ciilkama korow daran ninku waa ki ciilka ka kora wixii ciil kugu haya ee xumad kugu haya xal baa laga gaaraa haddii uu colaado ku hayso orod oo dagaal tag orod 10 nin oo isaaqa dil marka leed oo seexo waxa tiri Sahra Halgan ma aqaano heesaheedana ma aqaan anaga naqaana anaana ku shidaaya heesaheedii anagu kuwaasaanu ku baranay heesihaanu ku baranay ayaan ku shidayaa ay dhageyso mar haddaan hingala dhigay dhimashada ka wada simay maxay iyo ragna isbaray Allah ilaahay karbaadacay waxa weeye Sahra Halgan waa heesihii ay kaga qayb gashay halgankii markii ay dadka maxaan ku idhaahdaayay maxaan idhaa yuhuud ma oran karo laakiin waayo aan waxaan aaminsanayba inaad yuhuudda taxadka ka xigtaan dadka Soomaali siyaasadeeda iyo dhibtii dadka yaga loo geystay xaq u arka shakhsiyan waxaan aaminsanay in aanay inay yuhuudda ka hooseeyaan marka gabadha aad leedahay ma aqaano waxa ay ka qayb qaadatay oo ay heesaheeda kaga qayb qaadatay halgankii dalka yaga loo soo maray iyo xoreyntii waddanka yaga aanu ka xoreynay waxaan axmaaray iyo macnihii runta marka laga hadlo waxaan u quuro oo aan ku sheego ma jirto waxaan ku quuro oo iraahdo Ethiopian lama siimi karo taxadkaad ka xigta yuhuudda kulama siimi karo taxadkaad ka xigta wax aan kugu tilmaamo anu qabiilka ma hadlayo waxaan ka hadlayaa dawladda Soomaaliya iyo siyaasadda aad taageersan tahay dadka waxa taageersan ee sax u arka in ubadkayagii iyo dadkayagii oo habeen hurdada yuurado lagu rusheeyo dadka saxda u arka aniga Etoobiyaanka ilama sinna yuhuudana ilama sinna cid ay ila siman yihiin ma jirto marka waxa weeye laakiin mid baa jirta anigu waan aarsaday waxbaan iska celiyay wadan ku riday wax allaala iyo wixii xashiishkii iso soo urursaday waxay ahaayeenba wadan ku riday marka aniga ciilima hayo laakiin adiga ciil baa ku haya marka si aad u ciil baxdo walaalow qori qaado oo nin baa tahay dagaalan waxna la oo wax iska cil hadii kale dani wayda aad la soo fadhida maalin kasta adna aadan haysato ama maxaan ku raadey Sahra Halgan haysato walaal ka bax ka gudub Sahra Halgan iyo maxaan ku iraadayay iyo adna aadan oo rag baa istilay orado ragila ninka aad u barooranaysa naleedaysa sanduliya qasab ugu duceeya uma ducayn karno waxa tiri nin dhintay ayay ka daba hadlayaan oo ay soo habaarayaan soo mu dhibankaasi imaka qaar badan soo ma noola gidigo haddaba aniga fariintariga gaarsii ilaaha subxaanahu qaadirka cadaabta ku wada hubsan anigu cadaabta furaheeda ma hayo
jannada furaheedana ma hayo laakiin ilaaha subxaana qaadirka waxaan uga baryayaa in allaala iyo intii dalkayga iyo dadkayga rushaystay inuu naarta salkeeda ilaaha subxaana qaadirkii dhigo marka ha odhanin hadhowto dad nool in dad dhintay oo markii ay noolaayeen aan lala hadli jirin ayaa lala hadla dadka nool ee dhibta waddanka iyaga ka geystay ee cashuurtayadii iyo dowladdii aanu anagu salka u dhignay eenu anagu wax ka dhignay eenu anagu caalamka barnay xoolaha iyagii noo isticmaalay ee nagu rusheeyey halkaanu kala taaganay waad ogti shaki kaagama jiro ama waxaad tidhahdaa fanaan baa usoo heesay ama hebel baa usoo hadlay sahra halgan wuxuu yidhi kilaabkeedu ugu yimi haye kilaabkeedu ugu yimi maxay uga hadli weyday shaksi liito martinoo ahaa waxba ma nidhahan laakiin halka uu naga joogo adna waad ogtay anana waan ognay marka haddaba haddii aad hore aanad u ogeyn haddii aanad hore ogeyn dadka yaga dhulka yaga dhibaatada ka geystay halka ay naga joogaan haddaan kuu sheegaya giddigood rabbi cadaabta ha ku hubsada waan ugu ducaynaya anigu cadaabta furaheeda ma hayo jannadana furaheeda ma hayo annakana inta uu qof naga nool yahay wanaagnama dhex yahay anu qabiil iyo reer kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wixii dowlad soomaaliya lagu sheegi jiray ee aanu wax isku darsanay sahra halgan heesteedu waa taas mar haddaan hingila dhigay dhimashana ka wada sumay dahar iyo ragna isbaray alla ilaahay karbaa dhaqay waa heesihiisa raagga haddii aanad hore u aqoon barahada waataanu ku qadarino waataanu ugu bixinay sahra halgan waataanu ay nuugu tahay maxaan ku idhaahdaa ay halyeeyadda nuugu tahay weeye wixii la isdhacsiiyo allay dhicisay beentii yahay bagaa la isu jirib dhigay wixii la isdhacsiiyiyo bagay dhicisay beentii dagaalkii aanu la galay dadkii aanu waxaanaan ku sheegay aanan garanayn ee yuhuudda taxadka ka xigay ee etoobiyaanka taxadka ka xigay ee anugu waxaan ku qiyaasa aanan garanaynin waxaanu kula dagaal galnay xabad waxaanu kula dagaal galnay cod waxaanu kula dagaal galnay siyaasad sahra halgan iyo inta lamidihi waxay ahaayeen dadkii codka kaga qayb galay dagaalkii haddii aanad aqoonin maanta baro waa taqaanaa laakiin waad isdiidsiinaysaa maxaan ku dhahay hidda dhowrna waxaad ku sheegtay kilaab maalinaan sii horreynina waxaad sharaxaysay maxaan ku dhahay tiyaatarka laga dhigay muqdisho tiyaatarka muqdisho laga dhisay ayaad sharaxaysay bal waxa ay ku kala duwan yihiin adaa lagaa raba maalintaa kasii muddo ka horreysayna waxaad soo dhigtay 2 hablood oo yaryaroo reer somalilan xumaan baad daydaysaa xumaan aad reer hargeysa iyo reer somalilan ka keento ayaad daydaysaa waxaad soo dhigtay 2 hablood oo yaryar oo beer ku ciyaarayo waxaan u malaynayaa hoteelka libaaxyadii wax la oran jiray inuu ahaa waxaad soo dhigtay 2 hablood oo yaryar oo meel maxaan ku dhahay iskaga ciyaaraya oo ragla joogin oo xumaan kale ku jirin oo meel iska boodboodayo waxaas hargeysa ka socda waxbaan qarinayaa laakiin waxba hargeysa ka socda
hablaha yaryar ee hargeysa ku boodboodaya dhiiggii raggooday ku boodboodayaan maalintan anigu da-dooda ahaa kumaan boodboodi karaynin hargeysa casarka iyo waxaa nala seexin jiray 3 galabnimo dhiiggii raggooday ku boodboodayaan ha ka xumaanin saaxiib waxyaabaha maanta maxaan ku dhahay fideogiisa aan daawaday ay soo geliyay waxa weeye wuxuu yidhi nin dhintay ka hadlayeenoo maxaan ku dhahay reer puntland aha ninka hebelee dhintay maxaan ku dhahdayey waa loo heesi jiray fanaan hebel baa usoo heesay fanaan hebel kalaa usoo heesay waxa weeye fanaaniinta waxa lagu sheegaa reer somalilan iyo reer soomaaliyaba waa dad shaqaysta shilinka halka laga siiyaabana ka heesa halka shilin laga siiyo ayaa iyagu ka boodboodaan oo ay ka heesaan annaguba qaar baanu iibsanaa qaar baa ka heesa xafladaha yaga ma waxaad malaynaysaa inay jacayl ayna jecel yihiin ay u heesaan maya shilinkoodun bay soo raadsadaan annaguna waa ogna inaanayna jeclayn ayaguna waa is og yihiin laakiin shilinkaa shaqeeya saaxib marka laga tago 4 2 iyo 3 nuur daalacay ka mid yahay waa dad la iibsado waa dad shilin la siisto fanaaniinta dhammaantood marka inaad soo qaadato taasi waxa weeyaan waa khalad weey maxaan ku idhaahdaa annagu marka aad wax naga sheegtaan ma cabaadno ma qaylino laakiin idinku ama adkaysiya dambe yeesha ama afeef hore lahaada وحوايا سوماليلاند قف صوعايا قفنا صوها بارا قف وحو كسوها الدولة كسوها الله وحلا قبن كرمالي حق ربي كسعوتها مركا انتي نعيشون عيل كقبتاي حد ياليسان ولا ليالو الداد عيل بحي كري ويدين عادة جوشية سهرة هلقن يأفري لاباتن كسعودو حكا شاكيسان أدنى آذن وهل يقرأ انتو هيرو أنا waxay noo yihiin waa halyeeye qaran bay noo yihiin waa naago maxaan ku raahday rag kaga cabaadiyay marka cid kastoo na soo cayday cid kastoo na soo aflagaadaysa iyo cid kastoo nagu qasabtay inaan u ducayno waxa dadka dhintay waxba nagama quseeyo walaalayo قال يا سلام أنا قلت له ما قالي لكن قف بلا آذنا وضد مسلمة وعشور تودي وحكو برتي وحوله دي محن كورا ذي هالكوتشوغا كوجاري وقورا إنه الضيورة ذا لدعو إسلامني ما دي سموه بانو لكن إله سبحانه قدر تاكو شقله أنا جوا حاجة قصية أوكلي وحوية قصبنا يقوم هنا ندعية حتى نهبارنا أنا وحورة maanta lama joogo maalintii ay oran jirteen ha hadlina maanta lama joogo maalintii ay oran jirteen ha heesina maanta lama joogo maalintii ay oran jirteen dabaqii ha dhisanina taa waa naga iska xoreynay waa taanu ka dagaalanay taasi weeye marka maanta ha habaarina hebel caayna war waxaanu doonaan habaarina idinkuna waxaa doontaan caayo oo waxaa doontaan habaara ya adiguna halkaas soo fadhi oo maalin walba dayday dhibaataha reer Soomaaliland iyo cay reer Soomaaliland iyo waxa reer Soomaaliland ka sheegto rabbiga subxaanahu qaadirka ayaa ciise iyo sharaf siiyay reer Soomaaliland
rabbiga ilaaha subxaana qaadirka abaana siiyey rag dhiig leh, rag maxaan ku idhaahdaa aan gumaysi iyo gunnimo qaadanin. waxaad doonaysaa inaad wixii maxaan ku idhaahdaa aanu ka xorowray aad maanta noo sheegto adna tidhaha hadlina, yaan la habaarin hebel, yaan laga daba hadlin hebel. war wax hebel la yidhaa ma jiraan, wax hebel la yidhaa ma jiraan. dadka dad dowladdaas iyo waxaa ka midka ahaana idinku waxaad tidhahdaan isaaq waa yuhuud, idinku yuhuudda waa ka hoosaysa. wallaahi taxadkaa ka xigtaan. dadnimo ma lihidin, sharaf ma lihidin, dad lala dhaqmi kara ma tihidin. waxaan ka hadlaya waxa weeye inta siyaasadii Soomaaliya, intii la odhan jiray Soomaaliya eenu wax isku darsanay iyo inta taageerta. marka ama Sahra Halgan caaya, ama Adna Aadan caaya, ama Muuse Biixi caaya, waxaad doontaan caaya, waxa ka qaban kartaan ma jirto. guul iyo gobonimo ayaan ilaahay reer Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.